بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا جمعة وناكسن جمعة كريم waxaan tegaynaa masaajidka markaanu tagnana waxaynu qaadan doonaa laba faa'iido wax yar aynu wada socono يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين أهلا وسهلا مرلبات waxaan soo gaarnay masaajidka intaanan gelin faa'iidada ay ku talagalay waxay tahay koobaad في حديث أخرجه أبو داود رسولك عليه الصلاة والسلام wuxuu leeyahay إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي رسولك عليه الصلاة والسلام wuxuu leeyahay halkan maalinka maalmaha idinku fadliga badan waa maalinka jumcaha waxaad igu soo sallidaan aniga salaadiina iyo salligiina wuu isoo gaarayaa bimacnaa adiga markaa rasuulka aad ku sallido message ayaa si automatic ugu dhacaya faarax ayaa kugu soo salliyay hal goor zamzam ayaa kugu soo salliday 5 goor cabduraxmaan ayaa kugu soo salliyay 4 goor wahaakada bimacnaa markay sidaas ay tahay waxaa la iska doonayaa inaynu maalinka jimcaha kow number 1 aynaan isdhaafin rasuulka calayhi salaatu wasalaam messagekeena inuu gaaro oo si automatic ugu dhaco inaad ku salliday adiga ka labaad wax badan waagii hore markii aan yaryarayn waxaanu arki jirnay dadka masaajidka waxay la kala baxaan suuratul kahfi وايضا anagana waa la akhrin jirnay bimacnaa rag badan iyo dhalinyaro badan aniga lamid xaliga waagi horeysan arki jirin qof u sheegay laakiin marka la yaryaraan ka hadlaya gabdho badan markii yari inay arkin baa dhici karta haddana dad badan inay suuratul kahfi ay akhriyaan laakiin faa'iido ku jirta aysan ogeyn way dhici karaysaa laakiin aynu maanta dib isugu sheegno nabiga عليه الصلاة والسلام wuxuu leeyahay في حديث رواه الحاكم وغيره أبي سعيد الخدري wuxuu leeyahay nabiga عليه الصلاة والسلام wuxuu yiri man qara'a سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين qofkii akhriya suuratul kahfi maalinka jumcaha waxaa loo nuuriyaa ilaa iyo jumcihiisa kale bimacnaa labada jumca inta u dhaxaysa ayaa nuur loo shidaa oo maalinkaas jumcaha haddaad akhriso maanta jumcaha haddaad akhriso suuratul kahfi tan iyo jumcaha kale inta laga gaarayo adiga ayay ku shidnaanaysaa saa daraaddeed labadan faa'iido midna ha ka tegin maalinka jumcaha kow inaad akhriso suuratul kahfi laba inaad akhriso salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam oo messagekaagu uu gaaro rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddaba aad iyo aad u mahadsantihiin jumco wanaagsan jumca kariim asalaamu calaykum